wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland ee magacooda loo soo gaabiyo Soola mudane Xasan Cabdilaahi Cawaale ayaa maalintii shalay ugu ambabaxay xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya caasimadiisa Jigjiga kadib markii ay martiqaad rasmi ah ka heleen dhigooda ururka qareenada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wafdigaas oo ay gudoomiyaha ku wehelinayeen gudoomiye ku-xigeenka ururka qareenada Soomaaliland mudane Mukhtaar Daahir Jibriil iyo Daahir Maxamed Faarax oo gudoomiyaha guddi hoosaadka xidhiidhka iyo wacyigelinta qareenada Somaliland iyo xubin ka tirsan ururka qareenada Somaliland garyaqaan cigaal almis ayaa waxa maalintii shalay si diiran loogu soo dhaweeyay xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaaladiisa Jigjiga gudoomiyaha ururka qareenada Somaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo ku sugan magaalada Jigjiga maalintii labaad ayaa waxa ay xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay kulamo kula qaateen gudoomiyaha iyo hoggaanka sare ururka qareenada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kulankan mas'uuliyiinta qareenada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo kuwa Somaliland ayaa mid lagu xoojinayo wada shaqaynta labada dhinac ee arrimaha sharciyada hoggaanka cusub ee dhawaan loo doortay ururka qareenada Somaliland ayaa iyagu wada dadaal ay kor ugu qaadayaan arrimaha sharciyada iyagoo xidhiidho kala duwan la sameeyay dawladaha jaarka oo ay ka mid tahay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo hay'adaha caalamiga